Wararka aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in 12 qof ay ku geeriyoodeen 15 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaana wuxuu qarxay xilli uu ku jiray safka gaadiidka doonayay in ay aadaan dhinaca garoonka Aadan Cadde gaar ahaan albaabka hore ee Hotel Afrika oo ku yaala halkaasi. Sidoo kale xilliga uu qaraxa dhacay ayaa goobtu waxay ahayd mid aad u mashquul badan waxaana xilligaasi goobta sugnaa dad badan iyo askar ka tirsan ciidanka dawladda oo halkaasi ku lahaa bar control oo gaadiidka lagu baawro. Dhismayaasha ku yaala aaga uu qarax ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan waxaana dab uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala agagaarka isgoyska kiiloomitir 4 Muqdisho. Sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dadka qaraxa ku waxyeeloobay ay ku jireen dad u socday xajka oo maanta doonayay inay u safraan dalka Sacuudi Carabiya. Ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa tagay halkaas isla markaana waxa ay xireen aaga uu qaraxa ka dhacay waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka iyo dadka. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan qarxii ka dhacay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. War qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka ay ku leeyihiin Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegeen in mas'uuliyadda qaraxaasi ayaga ay leeyihiin